munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay marwada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Caasho gudoomiyaha degmada Warta Nabadda gudoomiyaha degmada Holudaaga ururada haweenka ee labada degmo iyo waliba marti sharaf kale oo aad u fara badan munaasabadan ayaa ujeedkeedu ah isdhexgalka bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir xafladan isdhexgalka bulshada ayaa lagu soo bandhigay intay socotay heeso iyo waliba ciyaaro ka turjumaya hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ugu horeyn waxaa kulankaasi ka hadlay Deeqa Cabduqaadir Axmed gudoomiyaha degmada Warta Nabadda iyadoo ugu baaqday guud ahaan haweenka Soomaaliyeed inay istaageeraan kana fogaadaan qabyaalada sababtoo ah dawladda federaalka gobolka Banaadir ma meel kasta dawlad ka tahay maamadeena aad ugu soo dhaweynayna maadaama bulshada reedka xildhibaanad ka soo bulshada reedka ay wax badan ka soo shaqeysay haweenkana ay khibrad dheer u leedahay waxaan ugu soo dhaweynaa degmadan waxay tahay inay aragto haweenka ku nool iyo dadka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada sababtoo ah dadka ay mas'uulka u tahay kamid tahay waxaan leenahay maama Caasho soo dhawow degmadan waa degmadaadii shacabkan waa shacabkaagii hore ugu soo shaqeysay sababtoo ah iyadoo aan dawladda federaalka jirin xildhibaan waxa ahayd 20 sano ka hor waxa qaban jirtay bulshada reedka sidii haweenka kor loogu qaado Sembirina waxa u shaqeysaa haweenka waana kaaga mahadcelinaynaa hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo joogno sidoo kale waxaa kulan hadalkaasi ka jeediyay gudoomiyaha degmada Holudaag Maxamed Abuukar Jaafar iyo gabdhaha waxa firfircoon ama ku fiican wax qabadka iyo abaabulka gabdhaha sida anagu aan aragnay inkastoo dhibku oo mar walba oo dadka ku wada dhaco hadana uu dhib badan yahay hooyooyinka xaqooda dadaalkiinu oo mar walba oo san haynin hadii aad sidaan ku sii wadin waxaan malay doonaa hadii Allah idmo in aad horseed ka noqon doontiin wadankoodna hadii Allah idmo raguna sidiisaba ma diidana gabagabadii munaasabada siyaa waxaa hadal ka jeediyay marwada ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Caasho aad waxaan ugu faraxsanahay sida labada gudoomiyeba ay uga hadleen oo u taabteen muhiimadda haweenku ay leeyihiin haddaan aniguna ku sii daro waa iska badbadinaynaa faan bay noqonaysaa marka xoogaa waa gaabinaya wixii la dhihi lahaa waa la yiri marka aniga ma rabo inaan aad ugu tiiqtiiqsado hase yeeshee waxaan rabaa inaan iraahdo haweenka Soomaaliyeed laba waxba waa arkeen waa leeyihiin waxa koobaad oo leeyihiin haweenka Soomaaliyeed ama ha horeyso ama ha dambayse waxa weeye inay mar walba wadaniyiin geesiyaal ahaayeen xaawataakada hadda nolol kugu abtirinaya sooma aanan gaarin annagu waqtigeedii bay waxtar ahayd shaqadii loo baahnaa bay qabatay gobonnimay u soo dagaaleen dahabkoodii bay gadeen waa u dhinteen kuwa maanta joogaana hadda idinkaaba ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa iyagu mudooyinkan dambe ku holanaa qabashada munaasabadooyinka lagu talagalay isdhexgalka bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir Maxamed Ibraahim Gaabo Royal TV Muqdisho.